saaxiibayaal soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad waa barnaamijyadeennii aan hadba mowduuca ugaadi jirnay. Maanta mowduucan ka hadleyno waa arrin yaab leh oo ka dhacday waddanka Masar. Waa nin calooshiisa laga soo bixiyey dhagaxaan, dhagaxaan caadi ah, weliba ilaa iyo 300 oo xabbo oo dhagaxaan ah. Waan huba isla markiiba su'aalo badan ayaa isweydiinaysaa. Tusaale ahaan waxaad isweydiinaysaa maxaa ninkan calooshiisa geliyey ilaa iyo 300 oo dhagaxaan ah, ninku ma gudba isagu. Waayahay saaxiibayaal, intaan xalqada toos u gudagelin waxaan si xushmad iyo qadarin ku jirto idinkaga codsanayaa in haddii aad kanaalkayga hore ugu taxanaydeen aad like saartaan, haddii aad hadda ku cusub tihiinna in aad like iyo subscribe ii saartaan si ay idin soo gaaraan xalqadaha xiisaha leh ee aan kanaalkan kusoo gudbino. Sida ay ku soo warantay warbaahinta Masar, nin u dhashay waddankaas ayaa wuxuu isku arkay muddo xanuun dhanka xameetida ah. Deedna wuxuu go'aansaday inuu tago isbitaal ku yaala magaalada Qaahira ee caasimadda waddankaas, balse uu ogaado waxa xanuujinaya ee haya. Deedna isbitaal ayuu tegay, baaritaan ayaa lagu sameeyey, laakiin dhakhaatiirtii waxay u sheegeen arrin yaab ku noqotay ninkan. Waxay ku yiraahdeen xameetidaada dhagaxaan ayaa ka buuxda, waxaana u baahan tahay in lagugu sameeyo qalliin culus. Adiguna waxaa tahay nin da ah, annaguna ma awoodno in aan qaadno mas'uuliyadda haddii aad gacantayada ku dhimato, maadaama aad u baahan tahay qalliin aad u culus. Isbitaallo badan oo magaalada Qaahira ku yaala ayaa saas uga cudurdaartay, ninkaana u sheegay in aysan qalliinkaas culus ku samayn karin maadaama uu yahay nin da ah, qalliin aad u culusna uu u baahan yahay oo ah in dhagaxaanta laga soo guro xameetidiisa. Ninkan isagoo niyad jabsan oo quus taagan ayaa qayb ka mid ah qaraabadiisu waxay kula taliyeen in uu tago isbitaal ku yaala magaalo magaceeda la yiraahdo Qina oo isla waddanka Masar ku taala. Deedna magaaladan oo Qaahira u jirta 600 oo kiiloomitir ayuu u safray ninkan. Isbitaal ku yaala ayuu tagay. Nasiib wanaag maamulka isbitaalkan waxay ka ogolaadeen in ay ku sameeyaan qalliinkii cuslaa ee u baahnaa. Muddo 5 saac oo xiriir ah qalliin qaatay ayaa lagu sameeyay ninkan. Qalliinkaas oo looga soo guray dhagaxaan fara badan oo ku jiray xameetidiisa. Ilaa iyo 300 oo dhagax ayaa laga soo guray xameetidiisa, kuwaas oo isugu jiray kuwo yaryar, kuwo meel dhexaad ah iyo kuwo waaweynba. Wiil uu dhalay ninkan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaysan markii hore wax rajo oo badan aysan ka qabin aabahood in uu qalliinkan ka soo baxayo isaga oo nool, maadaama ay dhakhaatiirtii hore u sheegeen inuu u baahan yahay qalliin aad u culus, ninkaana uu yahay nin da ah, dhagaxaan badanna ay xameetidiisu ku jirto. Xalqadeennan aad ku kooban saaxiibayaal, intaas ayaan kusoo koobayaa. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad si xushmad iyo qadarin ku jirto idinkaga codsanayaa in haddii aad kanaalkayga hore ugu taxanaydeen aad like ii saartaan, haddii aad hadda ku cusub tihiinna in aad like iyo subscribe ii saartaan. sidoo kale saaxiibayaal waxaa jira page aan ku leenahay Facebook oo isla magaca kanaalkan wata, waa Yamyan Balase, kaas oo aan si maalinle ugu soo gudbino dhacdooyinka yaab kale ee dunida daafaheeda ay ka qorto saxaafadda caalamku. Si maalinle ayaan ugu soo gudbinaa dhacdooyinka iyo waxyaalaha qariibka ah ee saxaafadda caalamku ay ka qorto dunida daafaheeda. page-kaasna waxaan rajaynayaa inaad soo booqataan. Waa mahadsantihiin, waa noo xalqad kale oo xiiso leh. Nooli kulantee, guuleysta saaxiibayaal.